ninkii odayga ahaa cabdi aadan qaysna waa ka soo fadhiistay waa raggii dee isagu weliba dardartii buu qabaayo haddii ay ka dhigo maaragtay weydiintii hiyahay laakiin anigu mahasada yare kooban waxaan midhaha uma jeeda waxaan ujeedaa sheekaday ku timi intaasuu naga yara dhegaysta waxay 1971 annagoo dhowra oo ragga caawa aan garanaya maalinta wada fadhiyay uu ka mid yahay maxamuud ismaaciil xudaydi waxaanu ku qayirayno fadhinay guriga allaha u naxariistee xaliimo khaliif magool dabeedna nin baa u yimi oo waraaq buu dhibay magool nin baa u yimi oo waraaq buu dhibay wuxuu yihi waraaqda baan kuu sidaayay ma hubo meeshuu ka keenay laakiin magool baa loo dhibay magool way furtay waxay aragtay inay carabi ku qoran tahay fadhigii way iga yeedho qolkeedii hurdada yay igu yeedho waxay tiri warqada tan iyo akhri waraaqdii baan furay khad cas bay ku qoran tahay afcabeed bay ku qoran tahay waan bilaabay hadalkii sidii nin isaga warqada loo soo diray baan u akhriyay waayo wixii aan ka filayay waraaqda wax ka duwan oo cajiiba oo la yaab leh ayaa waraaqdii igaga soo baxay waa nin hadlaya ninku waa nin suudaaniya jacayl buu ka hadlayaa kharduum buu ka soo diray magool buu soo diray uu jecel yahay luqaday ku qoran tahay waa carabi jacayl haddii laga hadlayo afka carabiga iyo luqada carabiga wax jacaylka kaga xeer dheer ma jiraan balaaqadii iyo qofku dabakiisa leeli markay ka run tahayna waa kala luqad waxaan arkay waxaanan weliga kuna seexan kuna soo toosin wuxuu soo arartaba wuxuu haddii ilaahay ka dhigo soo wadaba aakhirkii wuxuu kusoo gabagabeeyey jacaylkiisii markuu ka sheekeeyey inuu gabadha jecel yahay oo sababta uu jecel yahay runtii aanan anigu qeexi karin waayo magool ilaahay ha u naxariistee iyo hablaheena fanaaniinta ah suudaan bay tegi jireen marka dabaaldegooda gobonimada aad baa loo jeclaa suudaan aad bay u jeceshahay fanka soomaaliyeed horta fanka soomaaliyeed oo dhan si gaara waxay usii jeclay magool dabeedna ma codkuu ku jecel yahay magool bas sida kale uu jecel yahay taas allahu yaclam laakiin aakhirkii wuxuu yidhi khadka waraaqda kugu soo qoray qalin cas maaha hadda waana khad cas qalin cas maahee wax kale maan samayne intaan sareej soo qaatay oo xididadeeda mid dalooliyey ayaan dhiig ka soo qaaday qalinkii abisakaabaha la odhan jiraan ku shubay dabeedna waxaa warqadda aan ku soo qoray waa dhiiggayga aan xidid ka soo qaaday caddaatan anigu dhulka ila wareeyey amba waxbaan tiriyaaye laakiin jacaylku inuu ilaa heerkaa gaadhayo oo xididada la daldaloolinayo dee aniga iguma jiri sheekada oo bahalkaad ku ciyaaraysay ee mar baa halkan iyo halkan iyo halkan lahayd ba sidan uu halis u yahay su-aalahaas baan isweydiiyey magool warqadii baan u akhriyey laakiin waxay igu reebtay raad culus bay aniga ninkii hadalkiisii igu reeb bella foole la yidhahdaan degana markaasoo habeena dhanbay hor iman jirtay waa markii igu horreysaa dee sheeka noocaasa iyo jacayl noocaasa bahalku waa noocyo badan yahay oo haddii ilaahay ka dhigo maaragtay laakiin mid noocaasoo xididka la daloolinayo dhiiga laga soo qaadayo waa markii igu horreysay finally waxaan guddoontay inaan ninkaasi wuu iga yaabiyey isagana ka yaabiyo ninkii gabaygan baan maasadan kooban baan tiriyey laakiin iyadoo aan doonayn hadalkii hore ku nifaaqo ninkii wuxuu yimi muqdisho yimi dabeedna maxamuud ismaaciil xudeediyo aqalkii magool fadhiyaysale isagoo caawa jooga fiicnaan lahayne sheekadii baa looga sheekeeyey de wixiisii tanna markaa waa suuqay taalla markaa maalin maalmaha ka mid ah koor galaba aloo la feera joogu ninkii oo uu wado la foora igu keeno wuxuu yidhi ninkan ma garanaysaa igu yidhi waxaan maya garan maayo adigu ma garanaysaa buu yidhi oo maya buu yidhi
marka tiisina de waa idin sheegay tanan kaga jawaabayna marka warkeena waa lahaya way sukaya sheegay marka maasadan أنا برا بسيطة رودي جايل كيمين كي وليه كشوي وحالي بركعي يا بيت هذا كسورة كشوا كبر يويلس جاهل نكو تنبع كرتين وقربوه وقفتين واختياري رتيجي شري انتي يا ترى كده قرمان يا يمن يلوكا كبر دي بركة ودقاقي أي هود ككش دبا وي كقولي waxay weeshteen dugaagga iyo ugaadha in muddo ay geynta ku jirto jiris bay yeelatay oo atiraahay ka dhigo maalinka maanta way maadi waa ka ilaatay oo lagortii bahalaha yeelatay maalmaha ka mid ah ninkii waa yima wuxuu yidhi gabdhaaya meel waxay maanta dhaqaaqday bay dhaqaaqday halkay u dhaqaaqday jihaday u dhaqaaqday barintu soo jihadiga loo sheego halkiibu ka dhaqaaqo isaguna bilo ayuu dhulkii loogu tilmaamay kayntii dhulkii ku jiray oo raadinayay laakiin goor subaxa waxaa la too kala roogdaay si baaditoonkii wuxuu ku helay gabadhii iyadoo sii socoto xagga dambe kaga yimo iyadoo isagoo xaggeeda eegayo markaa laar qalalan ku joogsado qacbay tiro dib ay soo jeesato saqadha waxay isaga qaadatay wixii ay la dariska ahayd bahalihii iyo ugaadhi laakiin waa isagii waayarkii halkan waxaa ka dhacaya markaa sheekadii labada qof jacayl dhiig ma lagu qoray weli duux ma loo shubay qofna saarta dhabarkiiyo ma u dheegay feedhaha dhabanada cad laga jaray hadalkii ma lagu dhigay xinjiraan isdhaga rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha weli dhiil ma lagu shubay laba ma isdharsiiyeen sida dhayda xoolaha dhagdhag ma wadaageen وأرضي هالكني واسهلي هدو جعل كلهم بهاي أنتوا قفكي وراق بس كداين وراق سوقاته سانتي سانا وكيتوا صوت اللاعي ترى تقفكي وجعل بهو قريب بدوني أما هذا الكلام تهاي أنتوا من دقات ولا وكيسان شاي قفكي لما قعد كيسان ترى ما بقول أنا باكي يوري بدوني أما سهل كهذا يصير دافته لما قفيت يصير فريست لما دي جعلكم كوكر كويل مسوق عتيرو ما يريد بل البدن سريج كم ورنها أولي كسوشبو مولدي جاي سجى وطال كاسبة كاميرا سيدي مولد بلدنا تكلم بوحي قررت يوم بحول لما دي كده مثلا سيدي عنها كده لو وذاك يشتري لو وذاك كو ولي لا يستدعى سداي بريد عن نسيب يلوكو كلا إلا لا سبح درك كوسدين بذات نوع دوم تاي إلا عندي مويه وحنا غاقي يشترين شباب بيسكون عليه كلن كي نبتها شيء في كنتيون دلنتين ممودي أنا قف كذا واقع أنا قف فريق واحد ترى برا كقار كود حقيقي كهون ترى هذا لما خبيستو قف فريق قاتين وما عرفتين ها سيداي ندوا يا ندوا شيء بس اللي نقف دبان نبجة مشاهد ما كان في هذا كي بدوا على كي تهدي هدي مواعي فالإسهلو يرسو شيء ستيو عايزو شيء لا هالكري لا هارت ماشي نفردينه لكن وح ممكن عليه ماشي هذا كي مواعي راي كورا لي راي بدوا على كي تهدي والله قبلي ها pada waktu kita di Hindi mewali, afdawan dan cabasala makan dok fahad ki pada waktu kita di Hindi mewali, makan dapat dihajar. Elmada teh Yesuhu sida dibir mahigal maka pubatai daya mapukoi dan kodi. Ia kau dangkaran kita deli moye dan deli moye begna ani kekecirin. كل بقى دحرق يرضى معدي كم مقطع البتينا يكل كيدرين درس بكوها له خاص يعني هاد بقى يجوك وعن لما يسوي خاصة بصوص عليه أنت اسمع صورة كشيء تاسي كذب تبرد على وضع عتب كيادر حركي درين درس بكوها له ها
toban maalmood kii qof meeshii taagnaayay ay sidaa u soo eegayeen 10 maalmood